السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال halkaan naga daawaneysaan Samadoon Media. Hadday tahay markii ugu horeysay oo soo booqdo channelkan, fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso, videona aad like gareyso, aad baad mahadsantihiin. Akhiiri waxaan idin wadnaa topic hor leh. Xalay wuxuu ahaa waqtigii waayaha dhalinyarada. Barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa ereyga romantic Soomaalida maxay ka aaminsan tahay, qaab noocay u isticmaashaa. garabkii midig waxaa taagan saaxiibkii Shaafi Duulane oo aqoonyahan Soomaaliyeed ahna qoraa inta badan dhalinyarada wax ka qoro. isagaan dhowr su'aal weydiin doonaa, waana kusoo dhaweynaa saaxiib Shaafi Duulane. waad mahadsan tahay. ugu horeyn waan soo waandhowahay, waana kaaga mahadcelinayaa martiqaadkaaga. aad baad mahadsan tahay. adiga mudan. ereyga romantic Soomaalida maxay ka aaminsan tahay, qaab noocaysa u isticmaashaa. horta marka hore intaanan gudagelin barnaamijkeeni aan yaro daawano muuqaalkan, kadibna aan dib aan iskugu soo laabano. muuqaalkan sanada aan u wada daawanay waxaa ka muuqdo waa xalfad aroos. waa wiil iyo gabar is aroosiyo oo xalfad loo dhigay. muuqaalka sidii noogu muuqday, gabadhii toortadii la gooyay bay rabtay inay afka u geliso. goor walba uu afka kala qaado way kasoo ceshanaysay. saa daawanaysay waad arkaysay. muuqaalkaas muuqaal cajiib u ahaa runtii. ninka dee dulqaad moon lahayn, gabadhan waxay rabtay inay xoogo afka u geliso ay kala laabato, haddana ay kala laabato, dhowr jeer ay kala laabato. isagii uu dulqaadan waayey, fur ku turuto gacantii qaadadii wado ka tuuray. markaa si hanaadaan u wada eegno muuqaalkaasi, waxay noo muuqataa dhalinyarta Soomaaliyeed inaysan intooda badan romantic ahayn. marka ereyga romantic macnihiisa kolley saaxiibkii Shaafi Duulane wuu noo macalin doonaa, isagaa noo sheegi doona, isagaa noo sharaxi doona. bal marka hore isaga aan weydiiyo su-aasha, aan idhaahdo saaxiib Shaafi Duulane, ereygan romantic muxuu yahay, qaabkaysa Soomaalida u isticmaashaa? kusoo dhawow. aad baad mahadsan tahay cabdisakshiye. waana dhowahay halkan asxaabtadan si xushmad looga salaamayaa. haddaan kusii socdo su-aashaadii romantic, horta dad badan oo Soomaali ah yaa fikir khaldan ka aaminsan ereygan micno ahaan, oo u aaminsan inuu dhaqan xun yahay ama dhaqamo xunxun u kasoo jeedo. romantic horta micnihiisu waxaa weeyaan Soomaali markii waxyaalo badan baa lagu micneyn karaa, siyaalo badan baa loo eegi karaa. laakiin generally markii si definitely loo qeexo wuxuu noqonayaa soo jiidasho ama dareen soo jiidasho. dareenka saynis ahaan markii looga hadlayo waa 5 qaybood baa loo qaybiyaa, oo waxaa la dhahaa marka sayniska laga hadlayo 5 sensory organs baa la dhahaa. 5taa dareen marka waxaa ka mid ah indhaha, sanka, afka, maqaarka jirka biniaadamka iyo urta. marka la leeyahay indhaha, markaad wax eegaysa aad aragtid, waa dareen aad wax ku aragtay bay ka mid tahay oo muuqaal ku aragtay. urta oo kale waa dareen aad wax ku urso, sankaad ka urisay. maqalka oo kale jabada markaad soundiga maqasho, dhegtaad ka maqasho, iyaguna waa dareen. intaasoo dhan waxaa sii dheer erey lixaad oo saynisyahantu kusoo daraan oo mythology la dhaho, oo micno ahaan noqonaysa waxaa la dhaho garabdaar, ama muxuu ahaa af Soomaali waxaa kale lagu sii dhaho haatuf. cid baa qofkan wax u sheegay oo kale ayaa qodobka lixaad saynis ahaan waa laga reebaa. waxaa kaloo soo raacdaa waxaa la dhaho emotionka waxaa saynis ahaan loo isticmaalaa shucuurta dareen ee xoogga, hadday tahay xanaaq, hadday tahay xiiso,
hadday tahay mataqaanaa waxyaalaha lamidka ah emotional la dhihi karaa kasoo gudub marka romantic soomaalidu khalad bay ka aaminsan tahay laakiin romantic waxaa la dhahaa wax kaste oo qofka dareen kalgacayl oo xiisale kugu samaynayo ugu horreyn marka waxaan ku bilaabaynaa si aan si definitely u fahno erayga jacayl iyo waxa ay soomaalidu ku aaminsan tahay iyo sida dhalinyarada soomaalida u isticmaasho jacayl ugu horreyn horta waa dareen ka bilowda isha oo ku dambeeya qalbiga weeyaan sidoo kale erayga jacayl ka hor intuusan eray micno buuxinaya oo sentence afka laga dhawaaqayo uusan noqonin ka hor wuxuu yahay waa dareen saa darteed marka soomaalidu inagu dad islaam hanahay waxyaalo badan oo dhaqamiyan diinta islaamka inuu diideyso ayaa jirta oo aysan muhiim ahayn ama munaasib ahayn inaad ku kacdo maadaama dad islaam nahay oo religious keepers ah waxaa lagama maarmaan noo ah inagoo ilaalinayna diinteena islaamka ee suuban iyo dhaqankeena wanaagsan haddana best way inaad ugu dhaqanno jacaylka oo ay ka mid tahay soomaalidu hore markii la eego taariikhda soomaalidu waa hal qoys oo hal dhaqan leh hal diin leh hal af leh isna fahmi karta wada meel kastood ka joogtid deegaamada soomaalida waad fahmi kartaa luuqadiisa walow eray suuqi waxa la dhaha uu jiro idin kala dhexdhexeeya erayga romantic soomaalida sida yar khaladka u fahansan ayaan in yar oo tusaalaha ka siinaya romantic dhawaan buu ina soo gaadhay sanada unagmu cusub yahay lakin romantic waxaa la dhihi karaa eray kaste oo qofka dareen siinaya kalgacayl ma aha oo dhanka khaladka inaad u eegto erayada maxaa ka mid ah xabiibti waan ku jeclahay gacaliso la-aantaa ma ahaan karo noloshaydii boqoradaydii xataa eraygan salaam calaykum hadduu qofku dhaho calaykum wasalaam ku dhaho dareen buu kusii sooma waa romantic bay ka mid tahay erayada noocaas romantic la dhihi karaa ma aha wrong sideka inaad ka eegto oo keliya marka gabdhaha markaad u tegaysid soomaaliyeed ugu horreyn anagu dhaqan iyo diinteena anagoo ilaalinayna ayaa waxaa muhiim ah in qofka aad soo jiidasho ku samayso soo jiidashadaas oo ah gabadha waad u tegaysaa si dhifi ahaan qaab ahaan waxaad u baranaysaa dabeecaddeeda iyo dhaqankeeda kulankaaga toddobaadka u horeeya waad badin waxaad ka dhigi iyado si xigteed ka dhigaysaa tusaale ahaan shiine baa suuqa u baxay gabadh aada u labisanoo suuqa maraysu arkay wuu dhowray dhowristuu dhowray mar labaad buu sii eegay gabadha midabkeedii waxbuu la yaabay already wuu ilaaway markaa hawlihiisiibuu soo qabsaday gurigiisiibuu ku sanoqo habeenkii markay ahayd ama u seexday ama maalin kale hadday doonta aroortii haatee iyo gabadhii xusuustay xaggee buu ka xusuustay waa qalbiga weyaan markii hore xaggee ka arkay indhuhu ka arkay saas darteed buu jacaylku u noqday dareen ka bilowda isha oo ku dambeeya qalbiga wuu raadiyey marka ninkii la dhahaa bisaaq gabadhii inuu la helo wuu helay lambarkeedii iyo wixii lamid ah uu la xidhiiray wuu u tegayaa marka u tago goob kastay ugu tagto sida dhaqankeena gabdhaha soomaaliya waa dad sharaf leh way soo dhaweynayaan soo dhaweynta kabacdi wuxuu usoo bandhiganayaa fikirkiisii ku aadanaa rabitaankiisa qofkana inaad waqtiga ka lumiso waxaa ka muhiimsan inaad danta u sheegto waayo nin baa waxaa leeyahay soomaaliya soo shukaansi doontay wuxuu soo shukaansaday 99 gabdhood gabadhii boqolaad buu tegay 99 gabdhood soo shukaansaday tii boqolaad buu tegay tii boqolaad buu yimaaday wuxuu ku yidhi inaad arayaan asalaamu calaykum calaykum salaam inaad waan ku jeclahay isgursani iyaduna waxay rabtay in muddo lasoo sheekaysto oo horta bal qofkan dabeecadiisa la isbarto oo la isdhex galo la isbarto haa la jacaylku wax sahal ku imanaya maaha ninkana dan buu watay waxay ku tigi warnaga tag jufan naga la gaadhi wuu qoslay maxaa walaasha ku dhacay maxaa kugu sameeyay dhaqan xuma waxay tidhaahdaa sawtii wax la sheeg sheegi jiray sheeka waxay ka wadaa meelaha soo mari jiray oo la soo shukaansan jiray iyada shukaansi iyo waxay rabtay inay isaga dabeecadiisa wax ka barato isagana guur buu kula booday absolutely marka way la yaabtay wuxuu yidhahday erayga waxaan ku dhahday dambi la-aan oo dambi yaraanna waan biday danna waan biday marka cabdisaaq waxaad ka soo qaadaa cabdisaaq saaxiibka garabkayga taagan gabadhii buu la sheekaystay gabadhii marka hubaal waxaa ah toddobaadka u horeeya waa inuu sameeyo kulan joogto ah kulankaas asagu already waxaa laga yaabaa inuu dareen jacayl ku jirto laakiin gabadhii kuma jirto waxaa meesha yaala marka gabadhii si kuu jeclaan lahay inaad falankeeda samayso taas oo ah waa inaad toddobaadka u horeeya si mataqaanaa continuously aad ula joogtid markaad saa ula joogtid
oo iyada waqti aad siiso aad waqti siiso dareen jacayl baa soo galay markaad u tegaysid waxaad sameynay markaa qaybo badan kow labiskaaga ad dhisaysa oo qaab dhismeedkaaga oo dhisi labo dhar caddaynaya calaamadaha jacaylka oo guduuda tusaalahaan sida jaakadan hadda aan qabo oo kale ama dharkan suudka aan qabo oo kale ayaad xidhanaysaa waad u tegaysaa habeen walba habeenkaad u tagto sheekooyinkii aad ka sheekeynaysa kuwa ka macaan ayaad ooga sheekeynaysa oo sameynaya soo jiidasho markaa kabacdi isfaham baa imanaya marka dhalinyarada soomaaliyeed qaar badan oo inaga horeeyana way jiraan oo aada u yaqaana gabdhaha iyo wiilasho sidan oo kale laakiin waxaan tilmaantan lagu khasabtay inaan sameyno dhalinyarada kale ee kasoo tegay dhaqankoodii lana qabsan heerka ay kuwa kala gaadheen ee nolosha meel dhexaadka middleka ku jira aad baad mahadsantahay waad mahadsan tahay daawadeel weli waxaan bartamaha ugu jirnaa barnaamijkeenii ku saabsanaa romantiga kolley sidaynu wada maqlaynay mise aan wada daawanaynay saaxiibkan wuu noo macneeyey wuu noo kala dhigdhigay aada u mahadsan yahay isagaan dib ugu laabanayaa kolkaa bal shaafiyo waan ku weydiiyey adiga wax dareen ah mise wax jeceel ah ama ad soo bandhigid ama ad qarsatid aad soo marta ma jiraan good waa su-aal fiican horta jacaylku waa xanuun aan lahayn waxa la dhaho medication ama daaweyn waa xanuun aan jirkaaga ka muuqanayn oon la dareemayn qofka hadda markuu xanuunsan yahay waa dareemaysaa si u bedelme qaab dhismeedka ka garanaysaa soo ma laakiin ma dareemaysid qofka hadda mataqaana dhalinyaro hadda ageka ku jirana waxay la tahay su-aashaas maya ma u dhihi karo inuu jacayl leeyahay ama soo maray excellent way jirtaa waqti xaadirkan aan kula hadlaayo weliba jirtaa hadda ba jirtaaba waqti xaadirkan aan kula hadlaayo allah sahla kolka aada baad mahadsan tahay daawadayaal waxaa halkaas kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni caawa aan idiin wadnay fadlan sida hore usoo sheegayba channelkan haddaad ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso videona aad like garayso wixii taliya tusaale ooduna wadaan ah waxaan idinka codsana inaad hoos inoogu soo gudbisaan qaybta commentiga fikirkaaga waa noo muhiim haddii aad hayso wax barnaamij ah mise program aada noo soo gudbinaysid qaybta commenti waad nagu soo gudbin kartaa aada nood mahadsantihiin kulanti wacan oo xiise leh